dad badan baa guuri laakiin dadku way khaldan yihiin waa inuu cabdi haybe waan kacaas xagga midabka dee cabdi haybe waan arkay fiidyadiisa anna waan is arkay waxaa barbarkayga fadhiya ama dhinacayga fadhiya injineer hudhud oo youtube-ka iyo tiktoktaba si weyn caan uga oo dhalinyarta soomaalida ee tiktokta sida weyn u isticmaasha ka mid ah injineer hudhud waan kugu soo dhaweynaya MMTV aad baad mahadsantahay walaal guuleed waan ku dhowahay adiga iyo telefishinada iyo bahda hawlwanadaba dhammaan aad baan idin salaamayaa goormeed bilowday inaad wax jishid dee waxaan bilaabay ilaa 2018 marka maxaa kugu dhaliyay inaad wax jishid horta marka hore baa aniga hobbigayga ma ahayn inaan wax jiro laakiin markaan arkay dad badan oo iga horreeyay tiktokta jiray iyo miidiyaha kaleba dee fiidyada ay soo sameeyaan keliyata ayuunbaa i xiise geliyey kadibna kudayaashaan kaga dayin jiray dadka unbay u kaliftay fiidyada qaar baa jira aan soo sameeyey islamarkaana ardayda iyo dhammaan intii taqaanay ba ay igu taageereen saa darteed baan usii waday anaa hawsheeda waay marka laga imaado dhinaca wax jilista waxbarasho laftarkeeda saas ku tihiin waxbarasho laftarkeeda waan dhigtaa oo waa tawalla noo nool yahayba kolle waxaan dhigtaa imika jaamacadda adnaadan caafimaadkan bartaa waxaa jira siyaasiyiin badan oo aad jishid oo amba qaabka u hadlaan shijid ama mas-uuliyiin ahaadaan amba ahaadaan dad xisbiye madax ka ah maxaa sababay inaad jishid su-aalaan isla hal weydiiyo badi weydiisay aad baad ugu mahadsan tahay su-aasha maantaan si ballaaran uga jawaabaya horta anigu waxaan dadka marka hore siyaasadda xiiseeya waxaan oran karaa dee xiiseen qof kasta wuxuu xiiseynayo jilaya moogta marka xiiseenaan xiiseynayo siyaasiyiinta iyo siyaasadda laftarkeeda ayuun baan usoo jilaa halkanna waa ka cudurdaaranayaa siyaasiyiin badan oo hadalkayga maaragtay si xun u qaatay oo qaar laftarkooda iga soo dacwooday way jiraan magacaabi maaye iyo dad kaloo shacabka ka mid oo dhahayo hebel walba ninkii ha noolaystaa meesha ka dhacday kan adeerkii maanta wax jishaa wuxuu oranayaa maxaad usoo qaadatay horta anigu qofaan caayi ma jiro keliyata waxaa iga ahayd xiiseen aan xiiseynayo dhammaan siyaasiyiintana barta oo ka salaamaya qof kasta oo aan canjiray oo siyaasi ama shacab ha ahaadee kulli waa qof aan xiiseynayo halkaana siyaasiyiinta faartiga dayaban leh marka siyaasiyiinta jishid marka laga imaado dhaliilaha kaaga imanaya ma jira qaan kugu ammaanay oo kugu sii dhiirigeliyey horta weli ma arag siyaasiyiin inkastoo laysoo gudbiyo dha hebel baa ma garanaysaa fideogaaga aada uga hela laakiin waxaad indhaha ku aragtoon baa dee laamina afka lagama galo dhow waa lagu xidhi karaa moogta way jiraan laakiin siyaasiyiin xiiseeya iyo kuwo aan xiiseyno hadalkayga wade ka cadhoodo si xun u arkaa labadaba way jiraan laakiin intaasoo kale raggaa markaan sarno waa ka raaligeliyaa laakiin waxaa yar jirta dhanka shacabka ayaan iyagu warba u hayn oo oranaya anigu adeerkiya oo ma garanaysaa laabtas ka soo garaacaysa halkaa laftirkooda waxaan leeyahay niyow aniga wax qabyaalada iyo wax kale iyo xumaantoona igama aha iga xiiseenaan xiiseynayo siyaasiyiinteeda xagga jiritaanka markaan usoo noqono jilida ma jirtaa qof aad ku daytay oo role model ku ah kolle ha marka dee shaqo walba faraa kula jirtid inaad hami iyo higsi ka yeelataa horta way qorax badan taha iminka hami badan waan ka leeyahay oo inaan dee meel ka gaadho maadaama aan ku jiro rag badan baan jira horta ku dayda rag aan ku dayda weliba waxaa ka mid ah boon xirsi iyo cabdi haybe iyo jirayaal badan dee horeyey sawraan iyo raggaasaan anigu xagga jilista kaga yara dayda dadka badanaa waxay yidhaahdaan ninkaasi cabdi haybe laambad buu u eegyahay amba qaab kooxo matali ahaado amba fays ahaanba ahaato weji ahaanba saa isku eegtiin oo kale weli dad makuu yidhahdeen waa isku eegtiin dad badan baa guuri laakiin dadku way khaldan yihiin waa inuu cabdi haybe waan kacaas xagga midabka dee cabdi haybe waan arkay fiidyadiisa anna waan is arkay kolley dee waxaa la yidhi adigu waxaa adigu iska aaminsantahay matiid ee waxay dadku kaa aaminsan yihiin laakiin badi dadku waxay dhahdaan ninkaa cabdi haybe bay isu eegtiin anigu laakiin isumaan codayn isumaan eegin baan leh dee waan anigu waa isgaranaya haddaan imraayadda been ii sheegin haddaan weliba imraayaddan ka maarmi karayo si kale aan isu arki karayo waan jeclaan lahay in soo arko si kale ilaa halkee baad doonaysaa inaad ka gaadhid wax jilitaanka soomaalida waxay ku mahmaadaa madaxa meel ka sareysa oo la salaaxa ma jirto maamaha maha waa hadal caadiye madaxa meel ka sareysa la salaaxa ma jirto bale dee maadaama aad shaqadii ku jirto inaad meesha ugu sareysaa inaad ka gaadhaana way qorax badanta waxay doontaa tilaw may kuuli ahaato shaqadaa waan jeclayn halka ku sareysa gaadho